waxaa maanta deegaanka Karindaalo lagu qabtay munaasabad xadhiga lagaga jareeyay saddex ceelbiyood oo laga hirgeliyay deegaanka Karindaalo Gowsa Weyne iyo Xiis waxaana ceelashan si wada jir ah xadhiga uga jaray agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka biyaha barasaabka gobolka Sanaag maayir ku-xigeenka degmada Ceelgaabo madaxda hay'adda Save the Children iyo xildhibaano ceelashan ayaa wax weyn ka bedeli doona nolosha iyo fayadhowrka dadka ku dhaqan saddexda deegaan iyo nawaaxigeeda mashaariicdan waxaa kaloo maalgeliyay bangiga horumarinta Afrika oo lacagta soo mariyay urur goboleedka IGAD iyo dawladda Jarmalka mashruucan waxaa fuliyay hay'adda Save the Children iyadoo kaashanaysa wasaaradda kheyraadka biyaha waxaana ka soo qayb galay munaasabada oo hadal ka soo jeediyay odayaasha deegaanka Karin Cabdilaahi Axmed Ismaaciil xildhibaan Faysal Kartuush xildhibaan Caawil Siciid madaxa Save the Children ee gobolada bari Maxamed Maxamuud Ibrahim Xaaji Lacag maareeyaha wakaaladda biyaha Aadan Jaamac Diiriye agaasimaha ceelasha Cabdilaahi maayir ku-xigeenka degmada Ceelgaabo Cabdiraxmaan Gaari Jiid xildhibaan golaha wakiilada Khadar Cali Xakiin agaasimaha guud Nafis Shurwac iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse hay'adan la yiraahdo ama badbaadada caruurta iyana qaybteedii libaax waa qaadatay waa dad hay'ad maaragtay hay'adana inta gawaadhun bay naga iibsadaan iyaguna waa naga dhistaan hay'adana baahiday daboolaan hay'adaas waa dabooshaa baahida wixii maaragtay soo hesho ceelkan Karin oo qodan 250 mitir waxyaabihii laga fuliyay ay saddex ka fulisay waxa kamid ah taangigiisa oo 250 foosto qaada dararkii xoolaha kaalmihii biyaha ay dadku shubanayeen solar TC generatorkii iyo qolkii waashmaanka iyo xayndaabkii lagu xulay magaranayay solarta ceelkan wuxuu ka mid yahay saddex ceel oo Save the Children iyo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ay ka wada shaqeynayeen fankiisana ay soo bixiyeen laba doonar ama laba deeq bixiyo kala duwan oo midna yahay banka horumarinta Afrika iyo dawladda Jarmalka wasaaradda ganacsiga ee Jarmalka Save the Children hawlaha kale aan ka qabatay waxa kamid ah 4 barkadood oo laga sameeyay iyadana Sanaag oo iyadana dhamaaday oo imkayna aan guurjin doona insha Allah taala soono aan u shukr naqno ku xamdi naqno nimcada iyo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina siiyay war Save Children waayo mashaariic fara badan bay qabatay gobolka Sanaag iyo degmada Ceelgaabo guud ahaanba ceelal fara badan oo dhaadheer bay ka qoday wadadan oo ay African Development Fund ay maalgelinayaan Save Children ay fulilayso si fiican bay wax uga qabatay sidii loo baahnaa wakaaladda biyaha aad baan ugu maciinaynaa wax badan baana dhiman oo degmada Ceelgaabo ka dhiman oo biyahaas xagga biyaha ama ha noqoto dhul badan oo kale ama tan lafteedo biyaha balaadhinta loo sii sameeyo ha noqoto ana ka shaqeeyay oo hawshan qayb weyn ka lahaa hay'adda Save the Children barasaabka maayirka rag badan baa ka shaqeeyay hawshan aad iyo aad ugu mahadsan markaan soo taabto wax qabadkii ay noo qabatay wasaaradda biyaha waxa kamid ah saddex ceel oo mataqaana saddexdaba boorhoora oo saddexdaba runtii ay ama meel ama hay'adaha ka keeneen ama iyagoo qalabeyntooda ay lahaayeen afarta ceel waxay ka kooban yihiin sidii uu sheegay mas'uulka horeeyay hay'adda Save the Children ka socday waxa weeye ceelka magaalada Gowsa Weyne oo dhameystiran qodaalkiisii qalabeyntiisii iyo dhameystirkiisa oo dhameystiran yihiin isla markaana uu functional yahay oo shaqeynayo iyo ceelkan maanta aynu joogno oo aynu bishii 10aad ee sanadkii hore halkan ku dhagax dhignay oo halkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barino biyo naga siiyo Ilaahayna ducadii inaga aqbalay ceelkaas wuxuu qodan yahay 250 mitir inta waliba waxa uu dheer biyaha EC-ga marka quality-ga biyaha la eegayo waa biyaha ugu macaan oo xareeda ayuu soo saaraya Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ma hadda iskale si gaar ahaan waxaan uga mahadnaqaynaa wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu oo kaashanaysa hay'adda Save the Children horumarka degmada iyo gobolka ay ka fulisay guud ahaan ceelkan aan maanta taaganahay gaar ahaan ceelkan aan maanta taaganahay iyo guud ahaan degmadaba Ilaahay barkeeyo ceelka cid kasto ka shaqeysay waynu ducaynaynaa waxaan rajaynayaa cid kasto ceelka ka shaqeysay inay ahlu janno tahay
narjuu lahum ahluljanna sababtaan ugu rajaynaya waxaa ka mid a xilalka waxaanu haynaa waxaan loo nool yahay in dariiqii jannada lagu tegi lahaa adduunka inta la joogo la shaqaysto dariiqa waxaa ka mid a in qofku wanaagga ka shaqeeyo wixii dadka anfacaya ka shaqeeyo hay'adda Save the Children saraakiisheeda dhammaantood ceelka waa la isugu tegey gacmo badan bay isugu tegey cid walbo ka shaqaysana waa mahadsantahay farxad gaar ah ii tahay aniga ceelkan karin daalo waxay farxad iigu tahay laba waxyaabood oo isbarkan marka koowaad gobolka markaan imi deegaamadii ugu badnaa ee aan socodka ku maraynay buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa deegaamada qayladhaanta ugu badani ka taagnayd xilliga biyo la'aanta laba arrin baa haystay karina mid wadda xumay ahayd oo waddada iyada iyo ceerigaabo isku xidha midna biyo la'aan buu ahaa biyo la'aantaa farxad gaara waxay igu tahay in biyo la'aantii qayladhaanteedii laga jawaabay ilaahay mahadiina maanta biyahaasi ay inoo gaadhayaan karin haddii alla idmo waxay u hoggaansan tahay shuruucda gobolka waxay u hoggaansan tahay shuruucda guud ee dowladnimada waxay mar walba liidh ku tahay wixii aan maxaanku idhaahdaa raalli kaga nahay waan uga mahadnaqaynaa mashaariicda waxtar kale ee wax ku-oolka ah ee ay gobolka ka hirgelisay gobolka waa degan tahay waana sii rajaynaynaa inay sii deganaato runtii annagu ka wasaarad ahaan annagoo fulinayna siyaasadda maxay tahay madaxweynaha iyo qorshaha horumarinta qaranka gudanaynana waajibaadka iyaga ka wasaarad ahaanna saaran kaasoo ah inaanu guud ahaan dalka Somaliland aanu ka hirgelino barnaamijyo iyo mashaariic horumarineed oo dhinaca biyaha ah guud ahaan dadka Somaliland aanu ka qabtirno in ay helaan biyo macaan oo ku filan oo nadiif ah oo ay cabaan dad iyo xoolo iyo maxay tahay beerahaba runtii anaga oo mas'uuliyaddeeda iyo waajibaadkaana saaran gudanayna طبعا anaga dalka oo dhan waa noo siman yahay mas'uuliyadana saaran waa mas'uuliyad aad iyo aad u culus Ismaaciil Axmed Maxamuud SABTV magaalada Ceelgaabo